kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkan waxa ugu waaweyn Iran iyo Israa'iil oo diyaar garowgii dagaal ee ugu dambeeyay ku jira iyo bariga dhexe oo wali gubanaya dab iyo weerar la isku adeegsanayo ayaa idin hayay xiisado ka kan qodobada kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda Turkiga NATO iyo midowga Yurub oo isku wada cuna duuban iyo xaaladda badda Mediterranean-ka oo khilaafkii ugu daraa ka taagan yahay Sacuudiga iyo Hindiyana waxa ay gaareen heshiisyo military kuwaas oo u muuqda mid cilaaqaad xumaaday Pakistan iyo boqortooyada Carabeed ay ka dameysay maxkamadda ICC ayaa iyadoo ku dhawaaqday inaysan baari doonin xasuuqa iyo cadaadiska Shiinuhu u geystay dadka muslimiinta ay ugu rus dhaqdhaqaaqiyo ciidan oo ka jira xuduudda Soomaaliya iyo Kenya iyo dawladda Soomaaliya oo sheegtay cidda madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madoobe ku cadaadisay inuu ka baxo heshiiskii doorashada qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda 16 December waa 2020 sanadku dabashana qiimaha badan waa maalmo Arbaca dabashana qiimaha badan aan ku bilaabo isla markaana ugu horeysay garoonka caalamiga ah ee magaalada Istanbul ayaa waxa uu galay markaasi kaalinta ugu sareysa ee garoomada dunida dhinaca shirkadda Hilaadisa badqabka soo dhaweynta iyo nadaafadda airportada Sky Turks ayaa waxa ay sheegtay inay u muuqato in garoonka Istanbul ee casriga ah uu mar kale hogaanka u dhuftay garoomada dunida isagoo u muuqda inuu markana uu sanka ku hayo isla markaana uu ka hormaray qaar kamid ah ayaa la yiri garoomada dunida ku yaala madaxa guud ee garoonka dalka Turkiga Istanbul ee Khadri Samsunli ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aankan u muuqda in dadka codeeyay ay u codeeyaan garoonka iyadoo oo dadka codeynta ka qayb qaatay ee kala dooranayeen garoomo ay kamid yihiin garoomada magaalada Doha ku yaala Hamad ka Hong Kong ku yaala Munich magaalada ku yaala Seoul ee dalka xarunta dalka koonfurta Korea ku yaala Incheon loo yaqaano Shanghai airportka ku yaala Singapore iyo Tokyo oo dhamaantood u muuqday in ay ka hormaray Istanbul garoonka Istanbul ayaa waxa uu codeeyay dadka inta badan markaas safra iyadoo barta codeyntana ay ahayd mid qarsoon laakiin marka uu soo baxay arinta ay u muuqatay in la kala markaasi kala doorto laakiin inta badan shanta kale airport sida garoonka Hamad International Airport iyo garoonka Hong Kong International Airport Munich International Airport iyo Seoul Incheon International Airport iyo Shanghai iyo kuwa kaleba waxa ayaguna ay galeen markaasi lambarada sarsare iyagoo markaasi dhamaantood u muuqda garoomo la sheegay in dhinaca badqabka nadaafadda iyo soo dhaweynta intaba ay horumar buuxa ka sameeyeen daawashada qiimaha badan iyadoo adogtiin xiisada dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay marwar ka dambeysay darsanayso isla markaana ay u muuqato inay Soomaaliya markan ay doonayso inay iska waabiso ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Guuleed Khadar ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay tahay dalka ku dirqiyay madaxweynaha maamulka goboleedka Jubaland in uu ka baxo heshiiskii uu Soomaaliya oo dhan ku heshiisay ee magaalada Muqdisho 17 bishii September ama bishii 9aad lagu gaaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo khudbadiisa ayaa sheegay in ay Kenya ka dameyso cadaadiska madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe isagoo sheegay in cadaadis xoogan lagu saaray wuxuu yiri walaalkan Axmed Madoobe waxa culays xoogan saaray Kenya oo ku dirqaday inuu ka baxo heshiiskii doorashada ee dalkiisa ayuu sheegay Mahdi Maxamed Guuleed wuxuu tilmaamay inaysan haba yaraatee Soomaaliya aysan ka tanasuli doonin wuxuu ku sifeeyay ilaalinta madax banaanida iyo inay iska dhowrto in faragelin lagu sameeyo wuxuu kaloo sheegay inay garnaqsi iyo waliba inay fagaare geeyaan ay Kenya ay ku gargeed doonaan shirka ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Djibouti magaalada caasimadda oo ay Djibouti iga sugu imaan doonto bahdilka ay Kenya ku hayso Soomaaliya iyo dadkeeda waxay soo dhaaftay alamtara ayuu ugu dambeyntiina waxay nagu kaliftay in aan guud ahaan xiriirka u jarno ayuu sheegay wuxuu sheegay in sababta xiriirka loo gooyay aysan ahayn in dawladda Soomaaliya ay doonayso dhibaato balse ay Soomaaliya khaati taagan tahay isla markaana gacan ku gabad ahayd maalmihii ugu dambeeyay si kastaba ha noqotee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay taasi jirto ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo ay xuduudda ka jiraan wararka ka imaanaya xuduudda markaasi gobolka Gedo ee dhinaca Kenya dhulka Soomaalida NFD ayaa waxa ay sheegayeen dhaqdhaqaaqyo halkaas ay ka wadaan warbaahinta dalka Kenya oo xiganaysa saraakiil iyo dad ku sugan ayaa waxa ay gorsii horeysay sheegeen in ciidamo fara badan oo Soomaali ah ay dhaqdhaqaaq halkaas ka sameeyeen si kastaba noqotay warbaahinta Horfadhi Media ayaa waxa ay ogaatay in dawladda federaalka Soomaaliya ay amar ku siisay militariga xuduudda jooga in ay dhowraan isku socodka nabadgelyada iyo inay ilaaliyaan sidoo kale in wax qulqulatooyina ay Kenya halkaas ka sameeyso iyadoo Kenya ay dhowr jeer soo hubaysay maleeshiyad deegaanka ka soo jeeda kuwaas oo weerar isdaba ku hayay fadhiismada ciidamada militariga ee Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo ka tirsan iyo deegaanada kale oo dhan kor loo qaaday waxa la yiraahdaa dhaqaaqa ciidanka heegan la geliyay iyadoo dawladda dalka Kenya ayaamihii ugu dambeeyay oo dhan laga baqayay in ay sameyso qulqulatooyin iyo inay dad soo adeegsato
halkan nagala soo tantaa wadayaal wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ee dalka Algeria waxa uu soo dhaweeyay shixnad dhinaca maraakiibta dagaalka ah iyadoo oo sanadkan uu yahay sanadka ishubaynta dhinaca badda iyo dhisitaanka ciidamada badda oo la ogaaday in baddu ay tahay meesha ugu badan ee hatan ay taalo qaniinimada dhinaca asaarta iyo waxa loo yaqaano markaas khayraadka ceegaaga ayaa dalalka adduunka oo dhan waxay doonayaan inay kor u qaadaan awoodda dhinaca military iyo dhaqdhaqaaqa ay badda ku leeyihiin waxaana ay tani lafdhabar u tahay xataa khilaafka Kenya iyo Soomaaliya iyadoo oo Kenya hadeerto ay marada u tuurayso inay ka hortagto qorshayaasha dhisitaanka ciidanka militariga ee Soomaaliya dhinaca badda hadaba dunida ayaa maalin walba waxaad arkaysaa dal kasta wuxuu kor u qaadayaa awoodiisa dhinaca badda uu ku leeyahay maraakiibta dalka Algeria ayaa militarigoodu waxay soo bandhigeen maraakiibta ugu casrisan dunida oo haatan soo gaaray qaar kamid ah dalkaasi iyagoo sheegay in ciidanka ay kor ugu qaadi doonaan awoodiisa iyo galaangalka dhinaca badda iyadoo dunidu ay muuqato ay yiraahdeen in haatan awoodda badda ay noqon doonto tan ugu dambeynta lagu kala bixi doono wargeyska Anhar ayaa sheegay in laba markab oo waaweyn ay dawladda dalka Algeria ay soo iibsatay tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo sidoo kalena dawladaha Morocco iyo Algeria ay isku haystaan qadiyadda gobolka Sahrawi kaasoo dhawaan Mareykanku uu u aqoonsaday inay tahay qayb kamid ah dalweynaha boqortooyada dalkaasi Morocco hagaag daawashana qiimaha leh wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda sidoo kale barnaamijkeeni waxay noo soo socdo daawashana qiimaha badan barnaamijkeena xulashada dunida waxaa sidoo kale daawad doontaan waxaa jira in la yiri hadda waxa la helay talaalkii ayaa qarka la saaray dalka qaarkoodna way ansixiyeen sida laba dalba hadda wax dunida si rasmi ah ansixiyay jira waxa Kenya iyo Bahrain arintaas halkii Soomaaliya kaga jirta mise waa waxa weeye marka dadka geela la cabaan baa la cabay waa jira proposalka waana loo soo codsadana la yiri waxaa jirtay arrimo wasaaradda qaar kamid ah shaqaalaha wasaaradda iyo agaasimaha wasaaradda iyo baaritaano ku socday arintaas waxa ku gudbiyay horta waa runta waxa dad badan waa la soo daylaashay dhinaca dawooyinka iyo dhinaca dawooyinka shirkadaha Kenya meelaha laga keenay asal ahaan arintaas sidee markaa rabtaa in ay shacabka Soomaaliyeed dadqabkooda looga hubiyo in dawooyinka waddanka soo galaya ay sax yihiin oo ay yihiin dawooyin loogu talagalay xanuunka leeyahay loo qaadanaya ama inay dawo asal yihiin وكنت شرعي قاعد تقول عقاب ومضنايو عد اللي وهلا هدي لا انصحيه هذا مركز شرعي نقضه عد دنبيده نوعاس kale lagu helo in gafaf weynta marka la ansixiyo waxaan rabnaa qoraalka akhriska labaad inaan u bandhigno bulshada inteeda kale inta ay qosayso waa barnaamijkii dhul mar oo isaguna soo socda wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo arrimahaas talaalka bal arinta talaalka in fiirinaya talaalka waxa la yiraahdaa danyarta ee dhaqaalahoodu uu yar yahay ayaa wali safaf dhaadheer ugu jiri doona ama ugu sii jiri doona ayaa la yiri inay helaan talaalka in talaalku soo gaaro warbixino ay soo saareen hay'adaha dhinaca isku dheelitirka dunida ka dooda ayaa waxay sheegeen inay u muuqato in dalalka dhaqaalaha haysta markay ka noolaadaan talaalka loo soo diri doono dalalka iyaga oo kuwaasina ay ka digeen in cadaalad darro lagu sameeyo arintaasi kadib markii ay sheegeen in waxyaalaha xanuunka faafaha daran ee COVID-19 laga bartay ay ahayd mid kamid ah in uu dabeecadaha mid kamid ah uu leeyahay ahayd in uusan u kala aabayeelin dalalku inay kala qaniinsan yihiin iyo inay kala tabar daran yihiin waxay ugu baaqeen hay'adaha dhinaca oo loo yaqaan kuwa talaalka ka shaqeeya iyo hay'adda caafimaadka adduunku inay isku diyaariso in ay goor si horeysaba ay dalal badan soo gaarsiiso talaalka oo ku jira kuwa xayndaabka dhinaca aan iibsan karin hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa goor si horeysay waxay sheegtay in ay ka dalbatay kooxda loo yaqaano Vaccines Alliance ee Gavi in ay dedejiso in dalalka loo diro waraaqo ku saabsan in ay la soo gaaraan talaal dalalka aan iibsan karin iyagu talaalka ama safka hore kaga jirin dalalka Mareykanka Canada iyo UK ayaa si markaas ballaaran loo duraya dadka oo loo talaalaya iyadoo la sheegay inta looga galeeyahay ayaa la yiri in kor loo qaado badqabka nololeed ee dadkooda wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda daawashana qiimaha leh qaybta labaad daqiiqadeed